waxaa soo miirsaday iyagoo laga arinsanayo meeshii lagu aasi lahaa ayuu yiri Xasan Axmed oo dib u milicsaday 10 sano oo uu ku xidhnaa jeelka isla markaana looga shakiyay inuu taageero jabhadda ONLF asagoo u warramay wakaaladda wararka dalkaasi ka howlgasha ayaa uga warramay marxaladihii inta uu jeelka ku xidhnaa uu kala kulmay markii la xidhay ayaa la sheegay inuu ahaa 22 jir imikana sida caruurta uu socod baranayo marka uu kacayna ay dadkiisu qacmaha qabanayaan maadaama waxa uu ku xidhnaa jeel adag maamulkii dhawaan xilka laga qaaday ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa uga shakiyay Xasan inuu taageero jabhadda hubeysan ee ONLF inkasta uu sheegay inuu Xasan haba yaraatee jabhadda ONLF waxba ka garanayn waxna ka maqal isla markaana uu ahaa wiil ardaya waxna ka baranayay college ku yaala magaalada Jigjiga Xasan waxa uu ka mid ahaa boqolaal dhalinyaro oo ku xidhnaa jeelkaasi isla markaana shicibka ayaa sheegay inaanu haba yaraatee madaxweynihii hore dawlad deegaanka Soomaalida uu dadka Soomaalida xasuuqay hay'adda xuquuqul aadamaha u dooda ayaa sheegtay inay sidani ka baxsan tahay bini'aadanimo isla markaana jeelka lagu xidhayo aanu ahayn jeel caadiya ahna jeel lagu talagalay dad cadow in lagu xidho waa ناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمه تلفزيون كعالمي بدعس 24 TV عاصمة هرقيسة